siyaha wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Xalane ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa kulan kula yeeshay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, hantidhawraha guud ee qaranka, xisaabiyaha guud ee qaranka, agaasimayaal iyo xubno kale oo wasaaradda maaliyadda ka tirsan. kulankaasi oo lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ee sanadkii tagay 2014. kulanka ayaa mas'uuliyiinta ka hadashay waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, xisaabiyaha guud ee qaranka, hantidhawraha qaranka iyo siyaha wasiirka maaliyadda. Dr. Nuur Faarax, hantidhawraha guud ee qaranka ayaa hadalka qaatay, waxaana uu xusay in dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha la shaqeeya ee maaliyadda ay sanadkii tagay ee 2014 ay horumar ballaaran ka sameeyeen dhinaca hanaanka maaliyadda qaranka Soomaaliya. sanadka cusubna ay rajeynayaan horumar kale. waxaan halkan ka cadeynayaa in horumar weyn laga gaaray dhanka maamulka miisaaniyadda dawladda u degan iyo dhaqankii lagu maamuli lahaa. sanadkan waxa weeye waxaa lagu guuleystay 2014kii haddana dhaafay waxaa lagu guuleystay in waddanka lagu maamulo hab dhaqanka maamul ee miisaaniyadda loo yaqaano single treasury account, kaas oo dawladdan iyo laamaheeda kala duwan awood u siinaya in dakhliga iyo dhaqdhaqaaqiisa lagala socon karo hal account oo ka furan bangiga dhexe. innaga ka hanti dhowr ahaan waxaanu awood u leenahay in aan la soconno monitor gareyno dhaqdhaqaaqa accountka ka furan bangiga dhexe. marka habka single treasury account ka ah wax weyn buu soo kordhiyay in dhaqdhaqaaqa iyo la socoshada miisaaniyadda iyo muxuu ahaa budgetka in aanu la soconno. waxa kale oo jira oo aan ku guuleysanay 90% in accountadii ka furnaan jiray xawaaladaha ka furnaan jiray laga soo xiro, dhaqdhaqaaqoodii la joojiyo, lagu soo xiro bangiga dhexe. siyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Xalane ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda maaliyadda ay hormuud ka tahay qorshe cusub oo lagu hagayo dhaqaalaha dawladda, isla markaana wasaaradda ay horumar weyn ka samaysay dhismaha hay'adaha maaliyadda qaranka dhamaystirkooda. wasaaraddu waxay hormuud ka tahay qorshaha cusub ee loogu talagalay in lagu maareeyo dhaqaalaha dawladda laguna tayeeyo habka loo maamulo dhaqaalaha dawladda oo dhan. si loo hirgeliyo qorshahan maareynta dhaqaalaha ee cusub, wasaaraddu waxay fulisay qodobbada hoos ku qoran. waxaa la magacaabay hantidhawrka guud iyo xisaabiyaha guud. waxaa la mariyey sidoo kale runtii in ayagana maaragtay oo ka mid ah natiijadii in la buuxiyo bal horta hay-adihii waxaan wada maamuli lahaa. waxaa kamid ah hantidhawrka sanadan aad maaragtay runtii wuxuu annaga wasaaradda maaliyaddu aan aad raalli ooga nahay siduu u dabagalay hantida qaranka iyo meel kastoo ay la gashay, wasaarad maaliya ha noqoto, wasaarad kale ha noqoto, hay-ad kale ha noqoto. waxaan loo qorayo oon isaga maaragtay effortiga u gelinayna sidaasay ahayd. annaga siyaasiyiin baa nahay, waa inuu jiraa dalkii institutionadii hantida ilaalin lahaa iyo kuwii soo qaban lahaa oo annaga nagama madax bannaan inay jiraan wey. Mudane Xuseen Cabdi Xalane, siyaha wasiirka maaliyadda, ayaa mar uu ka hadlayay canshuurta ay dadweynaha Soomaaliyeed ka qaado dawladda Soomaaliya iyo inta ay leeg tahay. waxa uu sheegay in sanadkan la kordhin doono canshuurta dawladdu ay qaado si Soomaaliya ay u noqoto dawlad isku filan oo ka maaranta inta badan deeqaha caalamka. waxaana uu shacabka ka codsaday in arrintaani lagu gacan siiyo. waxaan rabaa in aan ka faa'iideysto shacabkeenna u sheego war wixii laydanka soo qaado canshuurta aan qaadno way yartahay, aad bay u yartahay. hadda waxaan ku filayn inay xitaa bixiso haddaan deeqaha dibadda lagu kabin canshuurta aan qaadno amniga, ciidamada nabadgelyada, mushaarooyinkooda iyo raashinkooda kuma fil. canshuuraha hadda la bixiyey waxaa ugu badan badeecadaha dhoofa ama soo dega iyo waxoogay rugaha ganacsiga iyo gaadiidka iyo aeroboortka iyo immigrationka oo qayb fiican ahoo fiisayaasha iyo work permitka iyo ayada baasaboorada iyano kasoo galaan. waxaan codsanaynaa
sanadan waxaan doonaynaa inaan xoojino kor u qaadno canshuuraha dalkeenna iyo sharafteena iyo dowladnimadeena waxay ku jirtaa in aan horta bal askariga inoo shaqeynaya qofka shaqaalaha inoo shaqeynaya xildhibaanka la doortay iyo inaan laga welwelin bishii mushaarooyinkooda ina siiyo. Axmed Cali Kaahiye, SNTV, Muqdisho.